soo dhawaada asxaabay. Beri baa waxaa jiray gabar lagu magacaabi jiray Bulbul oo ku noolay tuulo lagu magacaabi jiray Sitabuur. Waxa ay si murugo leh u fiirinaysay iskuulkii ay dhigan jirtay sanado ka hor. Agagaarka iskuulkaas waxaa ku dhintay waalidkeed shil baabuur, taasina waxa ay sababtay inay burburto nolosheedii ayna uga baxdo iskuulkeedii. Macalimad lagu magacaabi jiray Tiini ayaa aragtay, waxa ayna ka diiwaan gelisay iskuulkan si ay u dhammaysato waxbarashadeeda. Bulbul waxa ay ahayd gabar firfircoon, waxbarashadana ku fiican. In badan oo ay waxbaranaysay, waxaa la soo gaaray fasalkeedii ugu dambeeyay. Waxa ay imtixaanka ku galayeen iskuul qadiimi ah. Mar keliya waxa ay galeen jawi aamusnaan ah. Leedhku waa uu damay oo fasalku waxa uu noqday mugdi. Waxa ay maqlayeen codad cabsi leh, balse waa ay is adkeeyeen. Waxaa loo keenay su'aalihii, balse su'aaluhu ma ay ahayn su'aalo caadi ah ee waxa ay ahaayeen: sidee uga badbaadaysaan jinka maanta idin dili doona? Iyagu waa ay baqeen oo waa ay gariireen, cabsiduna waa ay siyaaday. Balse maxaa dhici doona? Fadlan intan haddaad nala soo gaadhay, nagu soo biir oo subscribe noo saar channelkeena, lana soco qeybaha dambe ee muuqaalka. Mahadsanid.